kulan wacan daawade waa mar kale iyo janaalkeena xogta daason maantana waxaynu ka hadli doonaa afduubka Nairobi sida loo shirqoolay xabso oo mar kale ka shiftay shirqoolkii ciddi ka dambeysay hormuudka kooxdii afduubatay xabso oo la qabtay warbixin guud iyo gabar Soomaali ah oo guud ahaan shirqoolkani qayb muhiim ah ka waday ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii ay tahay markii ugu horeeyay uu ku soo gaaro janaalkeyga waxaan ahay Yaxye Maxamuud Maxmed go'aanka bixista ama joogista adiga ayaa leh balse waxaan kaa codsan lahaa inaad ila joogto aad subscribe saarto janaalka si wararka xiisaha leh aan halkan kusoo gudbinayo aad ugu mid noqoto dadka daawanaya aynu ku bilaabnay afduubka Nairobi xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya walwali walaaci kala duwanaa ee Soomaalida ay istay qayb ka mid ah iyo markani dawladda Kenya afjaraysa taasoo farxad ay u arkaan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa ku nool gaar ahaan xaafadda Islii Soomaali aad u tiro badan qaarkood waa deegaan waxa ay ku dhasheen halkaas balse labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa taagneed sheeko aad loo hadalhayay taas oo afduub loo geystay gabdho Soomaali ah iyadoo xitaa ay dhacday in magaalada Mombasa gabar lagu afduubtay la dilo gabar kale oo Soomaali ah ayaa halkaas maxkamad loo soo taagay sabab la xiriirta afduubkaas iyo dilka mar kale Islii ayaa afduub ku dhacay ilaa iyo 3 gabdhood ayaa la afduubtay mid ka mid ah ayaana laga helay goob guri ah oo lagu hayay haddaba afduubka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxay ku soo biyashubatay gabar Soomaali ah oo la sheegay inay ahayd madaxa kooxda afduubka sidoo kalena shirqooleysay gabdhaha Soomaalida sidee ay xogta daason arintani ku ogaatay Xafsa Maxamed Luqwaan oo ah haweeney ganacsato 23 sano jir oo la afduubtay muddo 5 maalmood ah ka hor waxay shaaca ka qaaday in saaxiibteeda ka mid ahayd afduubayaasha waxaana ay sheegtay in Xafsa Cabdi oo booliska Kenya ay qabteen ay ahayd haweeneydii la soo xiray subaxnimadii maanta ee laga soo qabtay Kinangob iyo tuhmano kale inay ahayd maskaxdii afduubka dhowr afduub oo loo geystay gabdho ayaa la soo warinaya dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay kahor inta aanan aadin sheekada waxa sida loo shirqoolay iyo afduubka waa kuma Xafsa Cabdi laanta dambi baarista Kenya ayaa waxa ay hadda maanta ku dhawaaqday in gacanta ay ku dhigtay hogaamiyaashii kooxda afduubka Xafsa Maxamed Luqmaan oo ah gabar Soomaaliyeed taasoo ahayd ganacsato balse markii dambe gacantooda laga soo saaray qoraal ka soo baxay CID-da Kenya ayaa lagu cadeeyay in labada qof ee la rumaysan yahay inay yihiin maskaxda ka dambaysa qafaalashada lagu soo xiray guri ay ku dhuumaleysanayeen oo ku yaal xaafado ka tirsan caasimadda Nairobi Xafsa oo la waayay 15 Juun ayaa xuriyadeeda wax yar kadib heshay axadii toddobaadkii la soo dhaafay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada dharcadka ee Kenya sida lagu sheegay qoraalka CID-da Kenya dableeda afduubatay oo dalbatay lacag madax furasho ayaa koontada haweeneyda kala baxay lacag dhan $6,000 Mareykanka baarayaashu waxay dadaal dheeri ah ku bixin doonaan inay ku sii raagin dhibanayaasha koox kastoo afduubata iyadoo manaxayaasha had iyo goorba wajihi doonaan cadaalad ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka waxda dambe baarista Kenya kiisaska afduubka gaar ahaan kuwa lagu beegsado Soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyay si weyn ugu soo batay gudaha Kenya waxaana loo aaneynayaa habacsanaan ka jirta dhanka ammaanka taasoo dadweynaha cabsi gelisay Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan Kenya gaar ahaan magaalada madaxda Nairobi halkaas oo ay ku haystaan ganacsiyo kala duwan balse dhacdooyin amni darro oo soo badanaya waxay sababi karaan dib u gurasho in Soomaalida halkaas ay ka cabsato haddaba Xafsa Maxamed Luqmaan oo ah gabadha ganacsatada ee la afduubtay waxay ka sheekaysay sheekadeeda ku aadan afduubka iyo sida loo shirqoolay waxay ahayd saaxiibtay inkastoo aysan ahayn qof aan aad isugu dhownahay laakiin iyada ayaa igu hogaamisay dabinka afduubka waxayna iga codsatay inaan u raaco Kiyoole oo ay ku yaalaan dukaankeeda kale ay tiri baarayaasha dambiyada ayaa qabtay labada eedeysane oo ay ku tilmaameen kuwii ugu muhiimsanaa ee ka dambeeyay afduubka iyo jirdilka loo geystay Xafsa Maxamed Luqmaan oo Nairobi gaar ahaan ganacsigeedu ka ahaa mid caan ah haweeneyda 23 sano jirka oo ka ganacsan jirtay Islii ayaa la waayay Juun 15keedii 2021 waxaa soo badbaadiyay booliska 5 maalmood kadib Jackson Chwanga oo 24 sano jir Kenyan ah iyo Xafsa Cabdi oo 21 sano jir Soomaali ah ayaa lagu qabtay Crystal View Lodge oo ku taal nawaaxiga deegaanka Kinangob oo xalay ay ku hoydeen baarayaasha ayaa yiri subaxnimadii maanta ma ahayn maalin nasiibkooda hagaagsanaa waxaa laga soo qabtay qolka number 8 ee ku yaal Crystal View Lodge ay yiraahdeen boolisku waxay sheegeen in labadan qof isjecel ay soo abaabuleen afduubka
xabse maxamed oo ka dhacay dukaankeeda, waxaana la sheegay inay ku guuleysteen inay lacag dhan 650,000 oo shilinka Kenya ay ku furtaan akoonada bangiga dhibanaas intay afduubneed. Markii aan dembiga galeen, ayaga waa Jackson Nichoga iyo Xabso waxay u baxsadeen Kinangop, waxaana ay ka iibsadeen baar, halkaas ayay ka showl galeen, ayaa lagu yiri fariin ay soo dhigeen agaasinka baarista dambiyada. nimankan sirdoonka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in labada qof ee maanta la qabtay xilligu waagu bariya koox qarsoodi ah oo ka socda xafiiska baarista sirdoonka dambiyada ay qayb ka ahaayeen howlgalka qabashadooda. Xabse maxamed oo ku nool California State ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxay baarayaashu ka heleen qol ku yaal Mitiboni Kiole, halkaasoo lagu qasbay inay kusii nagaato haanta biyaha ee maran. ka hor inta aan la waayin Xabse Luqmaan, duubista kaamirooyinka ilaalada ee dukaankeeda ayaa muujiyay inay dukaanka soo gashay 10:44 galabnimo Talaadadii Juun 15keedii iyadoo la socoto Xabse Cabdi, waxaana la arkay iyadoo indhaha kala hadlaysa nin kale oo aan la aqoon ka hor inta aysan ka bixin dhismihii dukaanka. Xabse Luqmaan waxay sheegtay inay ku sugnayd goobteeda ganacsi ee caadiga ah ee California ee xaafadda Islii markii ay Xabse Cabdi u timid maalintaas kana codsatay inay u raacdo goob ganacsi oo ay ku leedahay Kiole. Waxay ii sheegtay in dukaanka ay ku leedahay Kiole halkaas oo ay ku iibinaysay qaraa, laakiin markii aan tagay ma jiraan waxaan ka ahayn dhul qashin badan oo ay geesay tiri. Markii dambana waxaa soo badbaadiyay saraakiil boolis ah iyadoo ay xaalad wanaagsan ku sugan, inkastoo la jir dilay mid ka mid ah farigeeda ayaa sidoo kale la jaray. labada afduubanayaasha waxay dalbadeen madax furasho dhan 5 milyan oo shilinka Kenya si ay u sii deeyaan Xabse Maxamed. si kastaba ha noqotay inta ay madax furashadan la bixin ayay tuhmanayaasha ogaadeen in boolisku ku daba jiro, kolkaas ayay doorteen inay carraan. labadan eedeysane ayaa maxkamadda la soo taagi doonaa maalinta beri ah. waxaan ku kalsoonaa iyadoo had iyo jeerba waan caawin jiray markii ay baahato, kaliya waxaan rabaa inay cadaaladdu shaqayso oo laga jaro waxay soo mariyeen. aad ayaan ugu faraxsanahay in la soo xiro ayay tiri Xabse Luqmaan oo hadashay. dhacdooyinka isdaba jooga ee gabdhaha ee magaalada Nairobi ayaa noqotay mid aad loo hadalhayo, taasoo booliska hadda la sheegay in xaafadda Islii ee magaalada Nairobi lagu kordhiyo laamaha ammaanka. sidoo kalena dhalinyarada ayaa loo ogolaanay inay socdaan xilliga dambe ee habeenkii, taas oo iyana ka dhigaysa mid lagu ilaalin karo ammaanka. balse dhacdada taas ka daran waxay tahay in iyadoo Soomaalida weeraradaas ay ku socdaan, ayaga laftooda afduubka ay dhinac ka wadaan. waxay ahayd in arrintan oo dhan ay bedelaan si ayagoo midaysan isaga soo horjeestaan ama ay kaga soo horjeestaan dadka ajaanibta ee Soomaalida dhibaatada ku hayso. balse Xabse Cabdi oo u dhaxda ninka lala qabtay ee Kenyaanka laguna magacaabo Jackson Nichoga, waxay soo shirqooleen gabar kale oo Soomaali ah, taas oo muujinaysa in dhibanaha loo adeegsaday gabar kale oo Soomaali ah. dhacdooyinkanna walwalkay abuureen waxay keentay in xildhibaanada Soomaalida ee baarlamaanka Kenya ay kordhiyaan xogaha ay la wadaagayaan laamaha ammaanka, gaar ahaan booliskii sirdoonka. Kenya waa mid ka mid ah meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay marka laga tago dalka hooyo, waxaana laga doonayaa feejignaan. hooyooyinka halkaas ku nool cabsi badan ayay dareemayaan, dhalinyarada gaar ahaan dumarka ayayse wax badan u cabsanayaan. barnaamijkii maanta waa naga intaas. nabadgelyo daawadayaal, waxaan idinkaga codsanaynaa inaad nala sii joogtaan si barnaamijyo kale aan idinkugu soo gudbinno. nabadgelyo.